hormuud cable tv waa hilka shacabka marwo Faaduma Saciid oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlaysay xarunta dhexe xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa gashanka ku turtay safarkii madaxweyne Biixi iyo wafdigiisu ku tageen dalka Itoobiya waxayna sheegtay in safarkan aanu waqtigiisii iman iyadoo xukuumadana ku dhalishay falsafada lagu maamusay oo lagu tilmaamay maamul ogolaaday inay la shaqeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya taasoo aan looga baran madaxweynayaashii hore soo maamulay qaranka Somaliland waxayna sidoo kale marwo Faaduma dul istaagtay isla war-saxaafadeedkii ka soo baxay fiila Soomaaliya ee niyad-jabka ku ahaa jiritaanka qaranimada Somaliland kaasoo ay dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeduna farxad kaga muujiyeen in la soo afjaray kala fogaanshihii dawladda federaalka iyo maamulka Somaliland sida ay qoraalkooda ku muujiyeen waxayna marwo Faaduma Saciid su'aal ka keentay 29 sano kadib waxa Somaliland ku soo celiyay maamul goboleed iyo waliba sida xukuumadani raalli uga noqotay in lagu maamuso ereyga maamul goboleed qaran dhan oo 29 sano calanka kor u hayay waxa aynu doonaynaa inaynu ogaano war calanka iyo waxaas wala dadka wala iskaga soo dhaweeyay nuxurku waa maxay nuxurku waxa weeyaan number 1 sanad iyo bad oo albaabku ka xidhnaa ba maanta horta laga furay marka loo eego maxay madaxweyne Daahir Riyaale saddexdii biloodba wuu tagi jiray ra'iisul wasaaraha Itoobiya way wada shiri jireen way wada fadhiisan jireen adigu laakiin wax weyn 1.5 years later sanad iyo bad ka bacdi oo albaabka garaacaysi ba maanta laga furay masadleed albaabka laga furay taa laakiin albaabka hal furay maxaa lagu furay waa su'aasha la isweydiinaya tan waxa weeyaan maxaa hay'adda darkaysa waxa weeyaan statement-kii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa xusud mudan eriyaasha la isticmaalay ay leeyihiin maxaa hayd madaxweynaha Muuse Biixi wuxuu aqbalay inuu si wanaagsan uu la shaqeeyo dawladda marka labada waxa la isticmaalay waa maxay maamulka Somaliland oo aqbalay inay dawladda federaalka ee Soomaaliya la shaqeeyaan hadaba waxa weeyaan inay kaahin wuxuu nagu yiri macna ma laha in la isticmaalo maamul waxaanay macnada marka aanay sameeynin waxa weeyaan marka la isbaaldhigo la yiraahdo maamulka Somaliland iyo maamulka Soomaaliya marka labadii la isbaaldhigo yes marka waxa weeyaan laba siman laakiin marka yiraahdo maamulka Somaliland oo la shaqeyn doona maxay hay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa farq weyn baa u dhaxeeya in la yareystana maaha taa maxaa ka sii xun khasada ugu weyn waxa weeyaan qoraalka ka soo baxay maxaa hayd statement-ka ka soo baxay fiila Soomaaliya ee ay leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya waxay boogaadinaysaa sida madaxweynaha maamulka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu u aqbalay inuu maamulkiisa iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan wa exactly to oo maxaa hayd ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu qoray bay iyo kuna maxaa hayd ay soo saareen waa maamulka Somaliland oo la shaqeynaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan doonaynaa inaan ogaano goormaynu noqonaynaku maamul goormaynu noqonay maamul goboleed waa mushakil haddaba 30 sanadood bay nagu qaadatay inaynu heerarka gaadhno oo maxay hayd inay dawladda Ethiopia ay inoo aqoonsatay inaynu nahay a de facto government inuu AU-du ay ina siisay observer status markay shirkooda weyn ay qaadanayso ay maxay hayd sameynayso war goormaynu intaynu waxa soo dhan ka nimi aynu noqonay maamul goboleed oo aynu waliba ku faanayno oo aynu leenahay maxaa ka macnaa waa cajiib weeyaan waxa kale oo aan aad iyo aad aan maanta ula yaabanahay waxa weeyaan wada shaqaynta wanaagsan ee Itoobiya lahayn walaaltinimada inaga dhaxaysay ganacsi baa inaga dhaxeeya xuduud aana maxaa had xuduud weyn oo aynu dhinac walba u kala talaabayno bayno maxaa hayd aynu haysanay
saddexdii biloodba madaxweynayaasheenu way tegi jireen way la soo shiri jireen way la fadhiisan jireen goorma baynu waxaasoo dhan inta aynu daadinay aynu maanta ogolaanay hadda maanta aynu ogolaanay sida halkan ku xusan aan si wanaagsan idinku akhriyo wuxuu ay ku qoran waxa weeyaan inuu Muuse Bixi uu aqbalay accepted the Prime Minister's call to further strengthen the close working relationship between Somaliland administration and the federal government of Somaliland of Somalia. taas miyay leedahay wax kale oo la turjubaano waxa weeyaan maamul iyo maxahayd federaalka maxahayd dawladda Soomaaliya wax alla wax aad maanta aad sheegi kartid ama aad ku tilmaami kartid ama aad tuuri kartaa midna kuma jirto marka waxa weeyaan su'aasha imika la isweydiinaya waxa weeyaan number 1 19kii bishii June buu madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi uu ka dhoofay Igaal Airport isagoo huwan sharaftii iyo maamuuskii qarannimada Somaliland shalay oo Jimco ahayd 22kii bishana wuxuu ku soo noqday isagoo magacii maamul Somaliland uu ku soo celiyay maxaa isagoo huwan oo xambaarsan oo waliba wasiirkeennii daakhiliga ina kaahin uu ku faanayo leeyahay maxaa ka macno ah isagoo isagu metelaya wasiirkii arrimaha dibadda oo ku darsaday inuu ra'iisul wasaarihii Somaliland uu noqdo marka waxaanu ka doonaynaa maaha ina kaahin maaha wasiirka arrimaha dibadda annagu waxaan doonaynaa inuu madaxweynaha mudane Muuse Bixi Cabdi inuu noo cadeeyo miyaynu tuurnay qarannimadeennii miyaynu qaadanay maamul goboleed goormaynu wada shaqayn yeelanay Soomaaliya goormaynu xoojinaynaa wada shaqayntan aad halkan lagu xusay ee qoran waxa weeyaan mugdiyaal fara badan baa meesha ku jira marka maanta inaynu ku doodno niraahno wala la soo dhaweeyo wala fiican iyo wacaynkan ma aha maanta waxa weeyaan had madow baqarnimadii Somaliland ku habsaday si kastaba haatee shacwinaha Somaliland ee rabitaankooda ku muujiya inay marun ictiraaf buuxa ka helaan wadamada caalamka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay jaaniska ay xukuumadda Bixi ku banaysay fursadii horsocodka Somaliland ee beesha caalamka iyo waliba inay xukuumadani ogolaatay erayo hoos loogu dhigayo jiritaanka Somaliland oo ay ka mid tahay ereyga maamul goboleed oo badanaba calaamada casaanka ay ka bixiyeen shacwinaha Somaliland waa Maxamed Andar Hormuud Cable TV magaalada Hargeysa